5 bilood kadib Alphabay hawada ayuu soo geliyay horaantiiba waxa uu ka bilaabay iibinta credit cardka la soo xaday haddana wuxuu ku xigsiiyay iibinta datada iyo loganiska la soo xaday iyo iibinta NTM malwareka daroogada iyo hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale adeegyada ay shabakadana bixin jirtay waxaa ka mid ahaa meerista lacagta madow laakiin waxyaabaha qaar Kilaadii sanadii 2010 internetka madow wuxuu sameeyay korkac aad u ballaaran sababtoo ah suuqa waxaa soo gashay lacagta Bitcoin oo ah lacag aan cidina maamulin waxay fududeysay iibsiga waxyaalaha sharci darrada ah sida daraagiska hack toolska hubka iyo sidoo kale xubnaha jirka bini'aadanka ee lagu kala dhex gato suuqyada online-ka ah ee ka dhex jira internetka madow intaa wixii ka dambeeyay waxaa bilaabay baratim u dhexeeya shabakadaha ka dhex abuuran suuqa madow baratinkan wuxuu keenay shabakado badan waxaana ka mid ah Silk Road markan waxaa timid Silk Road waxay noqon doontaa aabaha internetka madow shabakadani hawada waxay soo gashay Febraayo 2011 isla markiiba si dhaqso ah waxay u kasbatay isticmaalayaal badan taasoo ka soo dhex muuqatay suuqyada madow isla markiiba waxay heshay in ka badan 100,000 oo macaamiil oo daraaga isku kala iibsaday laakiin sanadii bar kadib aasaasigii shabakada waa la qabtay sidaas ayaana Silk Road ku noqotay mid hawada ka baxday si tusaale looga dhigo burcada kale aasaasigii waxaa lagu xukumay xabsi daa'im ilaa maanta saldhigga ayuu liinta ku dhex cabeeyaa dhab ahaantii suuqan waa mid aad u faa'iido badan wuxuuna u baahan yahay shabakad kale oo hogaamisa kadib xulitaankii Silk Road tiro badan oo shabakadaha internetka madow ahi waa la qabqabtay shabakadihii kale ee soo hadhaya waxay baratamayeen inay tagaan fikta sare ee suuqa madow si ay u helaan macaamiisha ugu badan ee joogta suuqa madow Silk Road 2.0 cisho kadib markii la qabtay Silk Road 1 waxaa hawada dib loo soo geliyay Silk Road 2 oo iyadana u shaqeysay sidii Silk Road 1 oo kale waxay soo ceshatay macaamiisheedii mar kale waxay hoggaanka u qabatay shabakadaha suuqa madow warjiraaba cakaaro ayuu imanay iyadoo waxaan sanadba gaadhin suuqa ku jirin ayaa iyadiina hawada laga saaray mar kale waxa suuqa xagga sare ka soo galay shabakad kale oo lagu magacaabo Evolution.00 shaqadiisa u badanna ay tahay sarif adigoo u diraya Bitcoin si uu alaabaha kaaga dalbo suuqa madow isku bedel kasta oo macaamiishu sameeyaan waxa uu ku lahaa gurno laakiin isna waa la qabtay Agora isna waa mid ka mid ah shabakadaha ka dhex abuuran marka suuqa madow waana shabakadihii ka faa'iideysanaya qabqabitaanka la qabanayo shabakadahan isna wuxuu ahaa shabakad ka dhex abuuran suuqa madow ee internetka wuxuuna si dadban u hoostigi jiray Silk Road ugu dambeyn asaasigii suuqan wuxuu go'aansaday inuu iskii u xidho wuxuuna xidhay sanadii 2015 suuqii madow wuxuu u muuqday mid maran kadib markii suuq kasta oo madaxa la soo kacaba la qabtay waxaana halkan ka muuqatay fursad cajiib ah una baahan cid ka faa'iideysata bishii July 2014 in isku magacaabay Alpha02 ayaa develop gareeyay shabakad ay ugu magac daray Alphabay kaliya 5 bilood kadib Alphabay hawada ayuu soo geliyay horaantiiba waxa uu ka bilaabay iibinta credit cardka la soo xaday haddana wuxuu ku xigsiiyay iibinta datada iyo loganiska la soo xaday iyo iibinta NTM malwareka daroogada iyo hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale adeegyada ay shabakadana bixin jirtay waxaa ka mid ahaa meerista lacagta madow laakiin waxyaabaha qaar ayaa mamnuuc ka ahaa oo ay ka mid yihiin xadista datada carruurta xadista banki kaarka laga leeyahay Russia intaasoo waa ka mamnuuc taasina waa farsamo xirfadaysan Alpha02 wuxuu iska dhigayaa muwaadin ka soo jeeda Russia si uu majar habaabiyo sirdoonka ku daba jira Mareykanka website-kani wuxuu u shaqeynayaa sida website-ka Amazon oo kale waxaad u baahan tahay ayaad ka dhex raadin kartaa waxaad awood u leedahay inaad ka iibsato adoo adeegsanaya lacagta Bitcoin Monero iyo Ethereum intaa wixii ka dambeeyay platform-kan wuxuu noqday mid guuleysta kasbadana macaamiil badan wuxuuna ka horumaray dhammaan shabakadihii kale ee suuqa madow kula jiray waxaan sanadba gaadhayn wuxuu kasbaday 200 oo kun oo isticmaale iyo 40,000 oo salaries 2017 Alphabay waxaa la soo geliyay 300 oo kun oo item wuxuuna faa'iiday lacag ku dhow $1 milyan maalin kastaba sidoo kale Alpha02 waxa dul saarnayd lacag isku bedel kasta oo ka dhex dhaca Alphabay sidaasna wuxuu ku noqday milyaneer Alpha02 wuxuu sameystay shabakado kale oo isaga ka wakiila waxaana ka mid ah DSnake00 ay ku midaysan yihiin dhexdhexaadiyaal ilaaliya khilaafka shabakada dhexdeeda ka dhacaya ugu dambeyn Alpha02 waxa uu damcay inuu ka fadhiisto shaqada wuuna ka fadhiistay waxaana booskiisii buuxiyay DSnake arrintanina waxay weerarisay dhammaan sirdoonka Ameerika ee ku daba jiray qabitaanka inay soo qabtaan maskaxda maamulka suuqa internet waa kuma boqorka internetka madow bal haddaba inuu gallo ku yahay boqorka internetka madow iyo ninka sayan oo dhan dunida u wareeriyay iyo wuxuu qasay boqorka internetka madow waxay raadiyaan basirdoonka Ameerika waxay ku fikireen fikrada isdhexeen waxay idin sahlaysaa qabashada aabaha shabakadan oo waxay isku dayeen inay soo helaan halka yeelan serfarada ay ka dab qaadanaysa shabakadan waxayna rabeen inay u sii maraan browserka Tor nasiib daro serfarka Tor iyo shabakada ka dab qaadataba waxay noqdeen kuwa daafaha dunida ku kala teedsan wayna adag tahay in Alphabay laga soo dhex qabto haddana sirdoonka Ameerikanka ahaa waxay keeneen fikrad cusub waxay iska dhigeen qof aan la garanayn waxayna daroogada ka iibsadeen isla shabakadii Alphabay inuu waxay rabeen inay hal raadraac ka helaan iibiyeyaasha daraagiska si ay ugu fududaato inay soo qabtaan laakiin si dhammaan cidii dabagalin kaliya waxay noqon isticmaalayaal yaryar muhiimaduna iyaga ma aha waa ninka lagu magacaabo Alpha02 ay rabaan inay soo qabtaan dhinaca kale ninka Alpha02 wuxuu u muuqdaa mid la socda raadraac kasta oo lagu hayo wada kasta oo la soo mari karana uu ka taxadiray waayo waxa kaliya halis gelin karta hal qalad oo sidaa darteed dabagalayaashii way ku adkaatay in wax xogaa ka helaan ninkan ilaa laga soo gaaray sanadii 2016
2017 maalin maalmaha ka mid ah nin lagu magacaabo Robert Miller oo ka shaqaynayay hay'adda DEA ee dabagasha daroogada Mareykanka ayaa waxa uu faray emailkiisii wuxuuna sii faray emailka soo dhaweynta ee uga yimid Alphabet markii uu iska diiwaangelinayay waagii uu rabay inuu soo dhigo macmiil wax ka iibsanaya si uu u helo tixraac. Emailkan waxaa loo soo diray qof kasta oo iska registereeya wuxuuna u samaysan yahay emailka soo dhaweynta welcome message-ka wuxuuna helay emailkan ciwaankiisu yahay Beam Elegas. Emailkan wuxuu u furi doonaa daaqad oo dib ugu laabto kiiskiisii. Baarayaashu waxay dabagaleen emailkii waxayna heleen sawirro 2008 ah oo uu leeyahay nin lagu magacaabo Elegas inay xifdisano magacan. Sidoo kale waxay sii fiirsadeen description-ka hoose ee profile-ka waxaana ku qornaa qoraalkan hal gurigiisu ku yaalo wuxuuna ku yaalaa cidhifka koonfureed ee Canada. Sidoo kale waxa ku yaalay da'diisa waa 17 jir waxaana la barbar dhigay tirada emailka ku qoray. Halkan waxa ka soo baxday 26 jir inuu ahaa markii Alphabet la sameeyay. Waxay dabagalkii wadaanba username ay ku qoran tahay Alpha O2 ayaa laga helay shabakadda French language wuxuuna ku soo baahiyay sawir sanadii 2008 wuxuuna ku sharaxay sidee virus looga saaraa sawir email la soo dhigay. Xogtani waxay noqonaysaa kii hore waxaana cidhifka kale ku qornaa magaca saxda ee isticmaalaha oo ah Alexander Xs. Markan baarayaashii waxay heleen magaciisa saxda ah. Sidoo kale waxay heleen mobile account-kiisa wuxuuna ku soo galaa emailkii sirta ah. Haddana waxay soo heleen profile account-kiisa LinkedIn waxaana ku lifaaqnaa halka uu ka shaqeeyo oo ah Iboga Technology. Sidoo kale waxay Facebook ka heleen gabadha uu qabo oo ah gabadh Tia ah degan dalka Canada. Tani waxay su'aashay inay baarayaashu toos u aadaan Canada si ay uga dhex baaraan magaalada Bangkok iyagoo kaashanaya ciidamada Thailand. Waxay heleen 3 guri oo khaas u leeyahay midka magaalada ku dhex yaala waxa degan isaga labada kalena kornayaasha magaalada iyo ku yaala. Sidoo kale wuxuu leeyahay guri ku yaala Phuket kaas oo aado waqtiga fasaxiisa. Guri kalena wuxuu ku leeyahay Qubrus. Ugu dambeyn waxaa la bilaabay inuu toos loola hadlo haddaynu ku noqono leeshiisa saxda ah. Alpha O2 waa multimillionaire wuxuu leeyahay gawaadhi kale oo qaali ah wuxuuna jecel yahay wadista gawaadhida oo ku tamashleeyo Bangkok. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo gaadhi Lamborghini ay ku tamashleynaya ay baarayaashu jabsadeen mobilkiisa iPhone-ka ah waxayna heleen macluumaad kasta oo ku saabsan gurigiisa saxda ah. Alexander Cases wuxuu ku nool yahay guri qurux wuxuuna la nool yahay xaaskiisa. Gurigiisa kalena wuxuu isticmaalaa shirarka khaaska ah. Cases waa nin magacyo badan ku soo gala social media waxaana la helay boosti kala duwan oo kaga hadlayo guusha iyo arrimaha qoyska. Dhinaca kale waa nin bulshada aan ka dhex muuqan aan laga dareemin wax lacag ah iska daa inuu yahay boqorka internetka madoobay. Wuxuu kacaa 8 subaxnimo kadib wuxuu isha mariyaa barihiisa kala duwan ee social media iyo wixii fariimo ee xagga shaqada uga yimaada. Wuxuu bartaa courses ku saabsan luqadaha. Xilqadaha xaaskiisa ayay wada qaadayaan gudaha June 2017 oo ku beegan isla wiigii xogta ugu badan laga helay Alexander. Baarayaasha Americanka ah oo ku caawinayay hotel ku yaala Bangkok ayaa waxa si geesaysa u soo galay Alexander wuxuu fadhiistay suudu baarayaashan isha ayay kala socdeen waxay eegayeen cidda u timaada iyo sidoo kale cidda la kulanta kaliya cidda u timi waa mutalabkii bil kadibna wuxuu ka xamba bixi doonaa adduunyadan oo la qaban doonaa. Aynu dib u soo noqonay waqti xaadirkan la jooga waa 2017 Alpha waa suuqa ugu halista badan suuqyada madow waana ka ugu sarreeya dunida oo dhan dhinaca internetka madow. Laakiinse waxaa jira suuqyo kale oo la baratimaya waxaana ugu cadcad shabakada kale oo la dhaho Hansa kaalinta labaad ayay kaga jirtaa suuqa madow marka loo eego Alphabet waxayna samaysaa korokac aan caadi ahayn oo iyadana waxa muddo ku daba jiray sirdoonka Netherland. Ugu dambeyn waxay heleen serversku halka yaalaan waxaana yaaleen isla wadanka Netherland. Halkaana waxa ugu muuqda fikrad cajiib ah oo ay ku ogaan karaan suuqyada madow ee cidda maamusha. Waxay gudaha u galeen shabakadii waxayna koobi dheheen daatooyinka iyo macluumaad soo galaya kana baxayay iyagoo kaashanaya ciidanka sirdoonka Germany ee BKA. Waxay gacanta ku dhigeen controlkii Hansa shabakadiina may xirin waxay ka dhigeen mid sii shaqeysa maadaama iyagoo gacanta ku hayaan si ay u ogaadaan shabakadaha kale ee ku sii xiriirsan. waxayna daba galeen lacagaha Bitcoin-ka ah ee la isweydaaranayo iyo cidda la kala wareegaysa. Xaalku markuu halka marayo FBI-da waxay garab weydiisteen ciidamada sirdoonka ee Netherland iyo BKA si ay uga howlgalaan ka takhalusida Alpha O2. qabashadii Alpha O2 bal hadda daawo maskaxda loo isticmaalay si loo qabto ninkan haddaba waxay gudagaleen sida ay u qaban lahaayeen maadaama xogtii ugu badnayd ay ka heleen. Howlgalkan waxaa ka wada howlgalay FBI iyo DEA iyagoo kaashanaya 7 wadan oo European ah. FBI-du waxay gudaha u gashay maamulkeeda la wareegtay shabakadii Alphabet halka sirtaankii Netherland-ka ahaana gacan ku hayntiisa la wareegeen Hansa. Sababta ay ka rabaana waa haddii Alpha la xiro in macaamiisha u soo wareegta Hansa la soo dabagalo markastoo shabakada wada laga saarana isticmaalayaasha suuqan madow waxay wareegaan shabakad kale. Intuu xaalku halkan marayo Alexander Cases waxba muugeyn wuxuu iskaga tamashlaynayay baabuurkiisa iyo gurigiisa. 1 June 2017 waxaa hirgelay howlgalkii koobaad waxaana la xiray 2 ka mid ah maamulayaashii Hansa Market. shabakadii Hansa si toos ah ayaa loola wareegay iyadoo shaqeynaysa cidina ma ogaan inuu sirdoonku gacanta ku hayo. 5 July 2017 waxaa la gudagalay qabashadii Alexander waxaana la bilaabay si gacanta loogu dhigi lahaa taasoo qaatay reerintiisu muddo gaadhaysa 2 sano iyo badh. Watan maskaxda eegsadeen sirdoonku gaari Toyota oo midabkiisu yahay grey ayaa soo hormaray wado hormar
martay guriga Alexander Casey waxaana waday gabadh. Markii ay guriga Alexander hormarisay ayay u sheegtay wardiyihii guriga inay halkan ka kala geysan doonto. Kadib dib ayay u baxday si kedis ayayna gaadhigii dibadiisa ugu dhufatay albaabkii guriga. Alexander oo gudaha guriga ku jiray ayaa maqlay shirka dibadda gurigiisa ka dhacay, wuuna soo cararay si uu ogaado xaaladda shilka. Muhiimadda loo socdaana waaba intan. Waxaa la rabay inuu ka yimaado laabtoonkiisa oo furan marka la xidho, loo helo qalabkiisa oo unlocked ah, waayo haddii uu hard driveskiisu locked yihiin waxaa suuragal ah inay Alphabet sii shaqayso isagana waxba laga soo saari waayo. Alexander wuxuu ka soo baxay gurigiisa isagoo ordaya, wuxuuna soo aaday dhinacii gaadhiga. Isla markiiba waxaa ku soo booday ciidamo u diyaar ahaa. Nasiib wanaag, wax walba waxay u dhaceen sidii la rabay. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad halkan soo gaadho. Insha Allah waan jeclaan doonaa inaad la socon doontiin muuqaalada dambe ee bartan soo gelin doono. Muddo badan halkan waan ka maqnay, laakiinse insha Allah wixii dambe